waligaa shilin ha dhaafsan kuwa dhaw. soo dhawow inta aynan u guda galin mowduuca aynu ka hadlayno fadlan subscribe sar channelkeena dunida maanta wad mahadsantahay. hadda ka hor ayaa generaal u dhashay dalka Ingiriiska oo lagu magacaabi jiray General Frederick Stanley Mood kaasoo noolaa 24 June 1864 ilaa 18 November 1917. generaalkaas ayaa waxa uu tagay deegaan kamid ah deegaanada Carabta. waxa uu la kulmay nin xoolo dhaqato ah oo wata ay aad u tababaran daacadna u ah. eegaas xoolaha ayuu la raacaa oo uu qumiyaa kana ilaaliyaa tuugada iyo duurjoogta halista ah. generaalkii ayaa waxa uu ku codsaday turjumaankii la socday in shakhsiga xoolaha leh uu siinayo hal geni oo sterlinia haddii uu bireeyo ama uu gowraco eeygiisa. lacagta yar ee la siinayo waxay u goysaa wax badan. qowsaarkii farxad ayuu la dhacay wuxuuna si fudud u soo qabtay eeygii kadibna wuxuu ku horgowracay generaalkii reer Ingiriis. halkii geni ayuu siiyay maadaama uu gowracay eeygii rabaayada u ahaa saaxiibkan u ahaa. mar kale generaalkii wuxuu codsaday in uu siinayo geni kale haddii uu maqaarka uu ka wada bixiyo eeygii uu qalay. ninkii xoolo dhaqatada ahaa ayaa si degdeg ah u maqaar siibay ama harigii uga saaray eeygiisii. sidaasna wuxuu ku qaatay geni kale isaga oo si weyn u sii faraxsan. mar saddexaad ayuu General Stanley Mood wuxuu codsaday in uu siinayo geni saddexaad haddii uu cadcad u jarjaro eeygii uu bireeyay. ninkii xoolo dhaqatada ahaa eeygii ayuu cadcad u jarjaray isaga oo aad u dhoola cadeynaya. sidaasna wuxuu ku qaatay genigii saddexaad. intaas markii uu sameeyay ninkii qowsaarka ahaa ayuu generaalkii iyo ciidankii la socday iska tageen. ninkii xoolaha iyo eeyga lahaa ayaa ka daba orday generaalkii kuna yiri geni afraad miisinaysaa haddii aan cuno hilibka eeyga. laakiin General Stanley wuxuu ugu jawaabay maya. wuxuuna ku yiri waxaan rabay in aan si fiican u ogaado dabcigeena iyo dadnimadeena. waxaad gowracday oo maqaarkii aad ka siibtay oo weliba cadcad aad u jarjartay saaxiibkii kuugu qaalisanaa ifka adiga oo dhaafsanaya lacag 3 geni ah. weliba waxaad diyaar buuxa u ahayd in aad cunto hilibka eeygaas si aad u hesho geni afraad. intaas ayuu ahaa ujeedka aan rabay in aan halkan ka ogaado oo aan tijaabiyo. intaas kadib General Stanley Mood wuxuu hadal kooban u jeediyay ciidankiisii wuxuuna ku yiri ilaa iyo inta ay jirto caqliyada sidaas u wada xun una fakiraysa waxba ha ka baqina. qisadan waxay tusma iyo tusaale ka bixinaysaa in aan guul iyo gobonnimo aysan ka dhex jiri karin bulsho walba oo diyaar u ah in ay wax yar oo fudud ka hormariso waxa qiimaha weyn iyo qaayaha ugu fadhiya. sida in lacag yar lagu siiyo inaad dumiso maslaxadaada ugu weyn. tusaale hebel dalkaaga hooye ka eri oo xoogaa shilmaad qaado. sida qofka bulshada waxtarka u ah soo dil oo lacagtan yar qaado. iyo tusaalooyin kale oo fara badan oo adigu maanta ku dhex arki karto dalkeena. waana waxa ugu wacan in la burburiyo maqaamka bulshada ay leedahay. waana mid noo soo jiiday dib u dhaca gumeysiga gunnimada iyo burburka dhinac walba nooga dhacay. qisadan waxay ku qoran tahay buugga uu qoray caalimka cilmiga bulshada ee reer Ciraaq Dr. Ali Al-Wardi. buuggaas oo lagu magacaabo lamaxaatul ijtimaaciyatu min taariikh al-Ciraaq al-xadiid. waad ku mahadsantahay daawashada iyo dhageysiga mowduucan. fadlan saaxiibada la sii wadaag.